Hi guys, another muuqaal kale bilis da muuqaalku cusub subscribe to like to share to comment ga anaga baqaylan walaalkayga ama walaasheeda qaaliga bilis sida muuqaaladan ku soo gaaraan kambeelka furo subscribe ta anaga baqaylan share to like tana waa xaqiina awada maxaan faala ka bixinaynaa maxaan gareynaynaa ama reaction ka bixinaynaa ama reaction qurux badan ka bixinaynaa waa youtuber ka weyn dhigle iyo marish hamu hore waxaa jirto game ay ciyaarayeen labadan waa laba asxaab ay ahaayeen wax badan soo wada shaqeey dhanka prankiga noqoto dhanka vlogga dhanka tiktoka game-ka isla ciyaaray marka marish way baxda marka waxay aaday waatay Canada aaday qurux ku dhiglana Nairobi ku hare marka game wada ciyaarayeen gameki ay xanaaq ay muujinaysa marka winkaas ana taa daawanay gamekaas marish ma aqan wajigeeda nooc si kala ka muuqatay ama xanaaqa ka muuqday jeegna wuu qoslay marka jeegna markaas qoslo ku jira marishna waxay leedahay qosolkan maxaa bilaa micnaha wajiga ay si kala maaqan marka waxa laga yaabaa maantaas masabeenkaas waxa laga yaabaa xaalad kale inay ku jirto xaalad dumar inay ku jirtay dumarka mar walba waa iska waxay galaan xaalado kale ama circle ay galaan circle inay ku jirto laga yaabaa day circle inay ku jirto laga yaabaa ama period waxa loo yaqaan period circle inay ku jirtay marka jeego waxaan ku leeyahay adina walaalkii qaaliga mar walba walaalkii tahay in adeerkaygiyo mar walba gabadha sa wanaajin jirto oo wanaaji oo qiime oo qadari oo naxariiso mar walba naxariista ka tagin saaxiibtinimada haddii ayda ku xumayso ha xumeyn adi qofka saaxiibkaaga hadduu ku xumeey ha xumeyn saaxiibada laba qof markay saaxiibiin maxaa loo gartaa tusaale maxaa loo gartaa marka labada qof markay saaxiibiin qofka markuu saaxiib dhab ah ku jecel yahay ma saaxiib dhab ah isla tiin tijaabira laga qaadaa test waa la test garay tijaabo la tijaabiyaa maxaa lagu tijaabiyaa dharka aad isla qaatiin marka la wiil aatiin hadda labadii ninka gabadhi dumara rag iyo dumara kala tiin dhar misla qaadan kartiin kaban isla ma qaatiin laakiin labada rag ah marka labada wiil marka saaxiibkaaga inuu saaxiib ku korsoon ama qadariso ama qiimo badan u yahay waxa loo ogaadaa shaatiga wataa maanta shaatiga soo gadane shaatigaas marka laba maalin waytid waa u diiday si hadduu ku dhaho waa u diiday hadduu saaxiibkaas isxanaajiyo ama xanaaq mase weji bedel ka dareentid qofkaas saaxiibkaaga maaho waa laga tagaa saaxiibtinimo wuxuu kugu jecel waxa uu saaxiibtinimo interestment waa saaxiibtinimo oo interestment leeyahay markaas saaxiibtinimo interestment waay marka badanaa dumarka wayn dhaleen way noo dhaxaan waan dhali doonaa waan dhalnay marka wayna la dhasheen ma jecel inaan wax dhaho ma jecel inaan qalad ka sheego mar walba dumarka mar walba waxaa waaye ayaga xaggooda interestment waaye marka la reebo hal dumar markii laga reebo oo ah midda ku dhashay sharafeeda ku dhashay qiimaha badan hooyooyinkeena qaaliga ah qadarinta naxariista badan marka laga reebo ayada interestment mar walba hooyada waa qiimo badan tahay laakiin midda ama dumarka kula socdo markaa saaxiibtinimada kula socdo ama wax walba kula socdo waa interestmentiga ay sameynayaan tusaale labada markaa dumar wiil iyo gabar markay saaxiib yihiin saaxiibo waaye tusaale kasoo qaad wiil iyo gabar markay saaxiib yihiin waxaa waaye fiiri wiilka markay gabadha iyo wiilka ay kulmayaan wiilka mar walba wax loo wadaa idinka waxaa ii raadisiin gabar maanta markaa gabar iyo wiil markay ballamaan mase meelaha public ama meelaha lagu ballamo ma ii sheegi kartiin gabar marka qarashka meeshaas la galay xaaladda markaa meesha qarashka galay waxyaabaha yarka la cunay hadday noqon sugarmo hadday noqon bisiir hadday noqon lahayd cabitaan laga cabo yaa bixiyay ragga la bixiyay mar walba raggaa bixiyay
haddaa u tagaysid habeen guri inaa u tagta aragti ala soo sheekaysid waqti la soo qaatay aragtid maxaa qaaday inaa cadsho qaatid leh waay jalaatada waa qaada u yaraa marka u yartaa jalaata qaada marka ninaa wuxuu sameeyey research uu sameeyey gabaruu saaxiib lahaa saaxiibsi ulaha habeen kasta wuxuu qaadaa shugarmada wuxuu gadaa mar biisada mar jikin jibsiga mar casho kastoo kasaa mar wuxuu qaadaa keeg karameel qaadaya mar baxlo qaad mar ice cream nooc kala duwan qaadaya war adi wax walba oo geen jirno habeenu marka ka soo tagay wixii wuxuu waa ku imaanaa cawada jirkan waa la bisto waa is diyaar gareey suudkiisii wixii la gastay waa is perfume gabadhii loo tagay gabadhii waxay isla cawada ninkan wax u bartay wiilka markaas markuu imaanay inuu wax u keenayo gacanta inuu wax ugu wada mar walba bac wax ku jiraan la inuu u geeyo markaas wuxuu sameynaa wuu u tagay wax ma qaadana haweenkan markuu u tagay gabadha xanaaq wajigeeda u isbedelay saamaan jiran saamiyel jiran saama noqon jiran maxaa waay waxa ku arka waji bedel ku arkano wuxuu dhahay isdaji hal habeen aan wax waay ma saa u qeynaysaa ugu dan lahaa isdaji uu dhahay markaasuu dhahay intaan rabay waa hel u dhahay waa maasantahay thank you waa maasantahay intaan rabay waa hel u dhahay wuxuu dhahay noloshaada this life no balance noloshaada dumarka nolosha lala wadaaga marka la socotid ama saaxiibtina kula socota inta xisaabaha lagu jiro inta la isguursanayo xisaabaha lagu jiro nolosha ma balance garanayaan ani waa ni sheegay gabar intaas socotiin ama aawada socotiin hal habeen casho ka dhiibis ma arkaysid xabba jalaatada mid ku gadas ma arkaysid tan as la socotid waaya waxay artaa mar walba in aad qarash u gashid jeebkaaga ina wax walba wax uga soo bixisid mar walba marka dumarka waa saas waay mar walba waa la wanaajiyaa iska wanaajiyaa qiimee saaxiibtinimada maahan wax lagu doorsado ma jid saaxiibtinimo interestmentina ma fiicno ma wanaag badno marka jaag waxaan leeyahay gabadha wanaaji qiimee qadari mar walba ha ku dayanin qofka duu ku xumee laguma daydo anaga u joogno Soomaaliland oo u jeedo habeenkii qaladka ay gashay maarishan waxaan leeyahay walaalkaaga raali garee walaalkaaga dumara tahay xaalad kale ku jiri kartaa hadal gaf uu ka dhici karaa laakiin qaladkaada waa qaldan tahay qaladkaada qaado wiilkaas walaalkaaga ah asxaabta ahaydeen muddo kula soo shaqeyn jiray isla shaqeynayseen kusoo gacan qabtay runta marka la sheegay anaga jeegan kugu baranay asoo kaftan badan maralba qoslaayo maralba kula kaftamay barangaal isla sameysay anaga asaan kugu baran runta muku aqaanane laakiin maxaan kugu bartay jeeg maralba ya jeegan kugu baranay habeenkii marka game ku leeliseen waxa dhahay maxaa u qoslaysaa maxaa saan u sameynaa qosolkan ba joojiya qosolka iyo dhoola cadeynta farxadda waaba hadiyad ilaahay uu dadka siiyo hadiyad waa dadka simiskaalan qosolka farxadda qosolka farxadda hadiyad waay qof kasta meelo qofa waxa loo geeyaa waa dhakhtar psychologist ama dhakhtar cilmi nafsiga loo geeyaa waxa la wuxuu u soo qoraa marka qofkan ha dhoola cadeyso waxa intuu soo kaco koobiye qaad murata istaago ismail ha sameey hanu qoslo ha farxo marka qosolka waa shay qaal waay jeeg waa qof kaftan badan qof bashaasha waay qof oo maralbo qosolka kasoo reeba qosolkan waa fiican yahay fiiro qofka qosolka badan ana dabacdaas aan leeyahay waa qosol badanahay waa iska kaftan badanahay marka fiiro dadka qaar waa aamusiina shub leeyahay qosol ma leh shub leeyahay war qosolka life style ku saxa qosolka waa wanaag waay qiimo waay qofka waxa waay waa farxad ku jirto waa marka qof kasta oo banaanka soo dhiga cadaan qofka qosolka mar walba waxa waay hibo qosolka iskama helo qofa dhakhtaran ku dan ku sheegay psychologist luga xalaha dhaktaro qofkan ma hadlo ma bahal muxuu leeyahay markuu soo qoro xulli ha hadlo
bulshada dhex galo ha la kaftamo ha qoslo loo soo qoraa fiiriya fiiri qofba qofuu ka kaftan badan yahay ama ka qosol badan yahay ama ka sheeka badan yahay ama sheekaalooyin ama qosol badan waa ka caafimaad badan yahay waa ka caafimaad badan hataa kuma dhacan cudurrada wadnaha kuma dhacan qofka qosolka badan cudurka wadnaha ku dhaco kuma dhacayan qofka qosolka badan fiiri qofka qosolka badan marka qofkan wax nin maamur waxa leeyahay marka aan ku maqlay waxaan ku maqlay inaad dhehaysid maxaa u qoslay qosolka maadida adi hadda kadib maxaa leeyahay dadka Canada taga qosolka qof Canada taga duu qof saaxiibka Canada taga ha ku qoslin ha ku qoslin marka raalaad oo inigu dheeray raalaad bliss muuqaalka dugso gaar noo sii share garee cawada waxaa waa jeega aan like ka sameynana ama faala ka bixinana oo muuqaal soo duubay oo asana jawaab bixinay marka aan wax ka dhageysano thank you waa maasinteen dhageyso wacan jeeg maxaan kaloo leeyahay hambali aan ku leeyahay dhanka TikTok ayuu wuxuu ka gaaray 1 milyan waxaan leeyahay hambali samiixa kula joogto samiixa waa ku salaam balaashi adina waa ku salaamay thank you hormar wacan leeyahay labadina waa in salaamay dabaaldega kuna ko jeer hambali aan ku leeyahay kul dabaaldegayna thank you hormar wacan marka jawaab bixinay marka jawaabta aan dhageysana marka don't know asxaabtaada ka mid ah mar walba channelkaaga subscribe ii saaran yahay gambalka ii furan yahay mar walba waa ku taageerna please mar walba hambaliyan ku leenahay hormar wacan hambaliyan ku leenahay hormar wacan please anina waxaa ii samaysaa walaalkeygiyo waxaa ii samaysaa share out ii samee waxayna noo dhiman meel saraan joognaa ya na gacan qabo inaad share out noo samaysaa rabnaa waadna ku baansantahay hambalyo sida TikTok inta 1 milyan oo gaartay YouTube kan waxaan rajaynayaa YouTube kaaga inaad 1 milyan gaartay insha Allah mar walba waxaan ku leeyahay hambalyo hormar wacan aan ku leeyahay asxaabtaana ka mid lahay thank you aan ku leenahay daawasho wacan marka asxaabay waan ka qaadan mari asraaligintu waa ka qaadan asxaabta kamid ah anagana waan ka qaadanay qalada gashay qaladki waana raali gareese waa maasantaan leena maarish adina thank you kuna ko jeer hormar waxaan ku rana asxaabta jaagadan anaga raali gelinta waan qaadanay jeeg asan raali gelinta waa qaatay marka hambaliyan leen jeeg hormar wacan marka horumarka yaa la suxmeen arab ilka isku dhow waa is qoomaan laakiin laguma dheeraado xanaaq laguma kala dheeraado dadka qaar way naga faa'iideysanayeen sida maanta aan jil ahaadeen maantana isku ahaada mar walba horumar wacan ayaan rajeynaya thank you aan leena thank you waa maasantiin anagana muuqaalkan dun soo gaaro share like subscribe ta naga baqeelina walaalkeyga ama walaashayda qaaliga sister or my brother or my sister yeah daawasho waa marka check oo raali gelinta qaatay asana raali gelinta qaatay markaan asxaabtiisana u qaaday anon kamid ah asxaabtiya noo qaaday
marka aan dhageysana marka ku soco. wuxuu ka leeyahay waxbarashada jeekas. halo shahaado la soo bixi labeen kana leeyahay wadaxaw ana ardayda dadka waxay dhihi jireen niyo maalin kasta wax lama barnay ma nasanaysid miya wax lama barnay run waay shahaadooyinka mar walba waxaan ka baran jiray waxbarashada ku anfacaysaa waxbarashada ayaa dadka dhigayso ayada qofka dhigayso maanta qofka ata ayada ka dhigayso ayada magac ku sameynayso maanta markaa wax baratid qof shaqaysid aan noqotid isku filan noloshaada ku finaatid ilaahay ku garab galo ilaahay ku garab galo alla ku garab galo mar walba waxaa noqonaysaa qof horumar gaarataay ya ilaahay qof markuu ku garab galo qofka dadaala aad tahay adina ilaahayna ku garab galo waxbarashada waa ku guulaysanay horumar kasta waa gaaray maanta laga yaabo markaa mar laga yaabo adeerku ma soo wacay abti kuma soo wacay eedo kuma soo wacayso laakiin biri markaa magac samaysid ma horumar aad gaartid waa lagu soo wacaa waxbarashada hal mar aad gaartid waa lagu soo wacaa qaaran hebel laga rabo keena u dhaha qaarankaas laga rabo keena u dhaha hebelaasaan dhah wax keena u dhaha maanta dhan laakiin biri maalinta duruufeysneed duruufta ku haysatay qof kusoo fiirnaa ma jirin qaasatan aniga markaan yaraa aan wax baranayay agoonnimo kusoo bartay run waay meel kasto maanta inta baajkaan noocmaa waay kullidaas baajkaas halka qaado gal kullidan baajkaas kala ka qaado gal kullidan baajkaas kala ka qaado gal kullidan baajkaas kala ka qaado gal inta diblooma ka qaado inta master ka soo dhamee master kala soo dhamee masterkan diyaari inta masterkan ma diyaarisaa chance master space kala gelin master kala diyaari saasan samayn jiray marka jeega wuxuu soo baxay habeenka jeegaan ku keenay shaqada ku keenay shaka ku timaadaay jeega wuxuu soo baxay dhowr shahaado tiro badan oo soo baxay maari mid shahaadooyinka ma ka xanaaqdo ma aqaan horta markii shahaadooyinka fidmada horta shahaadooyinka marun joogo diblooma taa wala horta fidmada kulli shahaadooyinka marun wuxuu dhawnaa adig kanada joogtaa laakiin ani waxaan dhahay afrikan joogaa intaas shahaadana waa wax qof wax bartaan dareen aan wax baranin waa dhiirigelina u tahay ha bartaan u taagna marka daawasho wacan بليز muuqaalka duu soo gaar noo sii share garee mar walba waxaan leenahay horumar wacan aan leenahay jeeg wuxuu dhahay marka dadka waxaa jir run waay waxbarashada irid ayay kuu furtaa waxbarashada qofku markuu wax barto irid kuu furtaa alxamdulillah shukran wax baranay haddana weli waan baranaynaa jaaniska iskama beel dareynana waqtiga iskama beel dareen maanta weli waxaan leeyahay dharneeda war maanta wiilow ama gabarey jaanis haysataa mobile haysataa maanta qad free haysataa adoo guriga jooga maanta wax baran kartaa waxbarashada iyo waqti ay haysataa iska baaldaran hal saac haddii lu dhaho soo celi ma soo celin kartaa jaanis hal saac hadduu ku dhaafo maanta billion dunidan dhan la bixi hal saac ma la soo celin karaa lacagtaas ma goos waqtiga qaali waay ka faa'iidayso timekaa iska lose garaanin time managementkaaga sameyso haddaad tahay macalin gelinka a wax soo dhegaysid gelinka kale jaanis ay haysata carruurtaada jaanis sii waqtiga kale dhanka cibaadada waqti sii dhanka waxbarashadana waqti sii waalidkaagana waqti sii
qaraabadaada waqti sii mar walba saas ku dadaal mar walba wiil ama gabar jaaniska maanta ay sidaa iska beeldaran ardayda waxaan leeyahay waxbarashada xoogga saara waxbarashada ayadaa ku kabto ayadaa ku garab taagan ayadaa ku dhiirigelinayso maanta maalin ahayn ayadaa ku garab taagnaanayso waxbarashada ha laga faa'iidaysto hadda mawduuca waxbarashadan kaale inta musoo gelin laakiin sheekay keentaa jaaga wuxuu ka hadlayaa sheekada waxbarashada marka intaasaan dhex gashtay raalli ahaada بليس muuqaalka duu kusoo noo soo shargaree marka jawaabta jeegan ku sugeynaa asaa jawaab bixinaa marka raalligaleynta uu qaatay jawaab uu bixiyay raalligaleynta uu qaatay asana tiktokiisa wuxuu gaaray 1 milyan ambalan leenahay youtube-kiisina inuu meeshaas email ka sii sargaaraan rajaynana anaga inaan meeshaan email ka sir inaan gaaraan rajaynana insha Allah asxaabtii qaali waxaan rajaynaa cimri dheer cibaado suuban caafimaad inaan rajaynaya bilis duu muuqaalka soo gaar noo sii shargaree